markastoo aad fasho dembi ku dheh naftaada mar keliyaata ayaan gafay ee nolosheedoo dhammaan guuldaraysan ha quusan ee weysayso oo tuka 2 rakacadood intaa kadib ku tasbiixso farihii aad ku dambaabtay kuna akhri qur'aanka kariimka isla indhihii aad ku fiirisay xaaraanta waayo taahad kuwa toobad keenaya alla agtiisa waxa uu kala mid yahay faqa kuwa adeecaya eebbana naftiisa waxa uu u bixiyey dembi dhaaf badne sababtoo ah waxa uu kaa doonayaa inaad u soo laabato xaggiisa isagu waa alle qofkii u yimaada isagoo baqanaya ammaan buu siiyaa kan u yimaada isagoo qalbi jabsan niyadda ayuu u dhisaa kan u yimaada isagoo hiil u baahan waa uu u hiiliyaa kan u yimaada isagoo murugaysan waa uu farxad geliyaa kan u yimaada isagoo lunsanna waa uu hanuuniyaa adigu xulo waqtiyada ducada la aqbalo baahidaadan u bandhigo allaah ka kac hurdada habeenka qaybtiisa dambe oo isaga bari ducadaadana ku dadaal oo ha quusan tala saarashada rabbigaaga kaga naso xanuun kasta oo ka dhashay fursad kaa dayacantay shaqo walboo aad weyday jacayl kastoo aad kala irdhowdeen iyo saaxiib kastoo aad u haysatay daacad balse gadaalkaaga xumaaday ilaahay waxa uu kaa qaado xigmad ayuu ka leeyahay waxa uu kuu daayana waa naxariis xaggiisa ka ahaatay ee haddii aad fahanto xigmaddaasi u mahadnaq haddii kalena iska adkayso maxaa yeelay guud ahaan qorshayaashiisu waa wada wanaag haba ku xanuunjiyaane